Shirkadda isgaarsiinta Somkebel iyo soo gashay xarun cusub ka furatay degmada Oodwayne ee gobolka Daad-madheedh. Xafladana waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Daad-madheedh, maayarka degmada Oodwayne, ganacsatada gobolka, isuduwaha wasaaradaha ka shaqeeya gobolkaasi iyo madaxda shirkadda Somkebel iyo soo Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan Rago, madaxa xidhiidhka bulshada ee shirkadda Somkebel ayaa ka waramay xafiiskani cusub iyo shirkadda muhiimadda uu leeyahay. Sidoo kalena waxa uu ka waramay adeegyada xawaaraha badan ee internet ay shirkadda soo u wado bulshada degmada Oodwayne iyo gobolka Daad-madheedh. Ina ka furayna xaruntii shirkadda Somkebel iyo soo oo looga bartay inay tahay hormoodka shirkadaha internetka ama shirkadda kaliya fiber optic keenta wadanka. reer Oodwayne waxaan ugu bishaaraynaynaa in maanta laga bilaabo xaruntan ay ka heli doonaan internet xawaarihiisu aad u sareeyo. waxaanu insha Allah reer Oodwayne ugu bishaaraynaynaa ganacsatadooda, ardaydooda, dhammaan macaamiishooda guryaha in ay naga heli doonaan internet xawaarihiisu aad u sareeyo. ardayda wax baranaysa sida Mustafa ka dhawaajiyay ay fursad u tahay. ganacsatada Oodwayne waxa lagu sheegaa inay tahay hormoodka Soomaaliland ee xoolaha waxay sameyn karaan online market bay ku sameyn karaan oo xoolihii bay online ku iibin karaan, caanihiisii bay online ku iibin karaan. marka adeega iyo shirkadda Somkebel ayaa adeega u fulin doonta. Mustafa Faarax, maamulaha xarunta cusub ee degmada Oodwayne, ayaa si faahfaahsan uga hadlay adeegyada kala duwan ee ay xafiiskan u bixin doono, kaasi oo ku tilmaamay adeegyada ugu xawaaraha badan ee internetka inay u sidaan bulshada ku dhaqan degmadani. barasaabka gobolka Daad-madheedh Nuur Cismaan Guuleed ayaa shirkadda ku soo dhaweeyay gobolka, sidoo kalena sheegay inay baahi weyn u qabeen internet xawaarihiisu dheereynayo. waxaan halkan ka furaynaa xariga ka jarayna xafiiskii gobolka Daad-madheedh ee Somkebel. Somkebelna waa taqaaniin waa shirkadaha fiber optic cidda halkan Somaliland keentay kuna shaqaysay muddo badan kana shaqaynaysay. waan soo dhaweynaynaa gobolkan ku soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay bulshada reer Oodwaynena dee horumarku waqtigan dunida laga horumaray wuxuu ku xiran yahay warfaafinta iyo arrimahan ku saabsan miidiyahan iyo internetyada iyo waxaaba dunidu hore ugu martay. taana dee ka faa'iidaysta. maayarka degmada Oodwayne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa isna dhankiisa ku hambaliyay shirkadda xafiiskan cusub ee degmada Oodwayne ay ka fureen, waxaanu sidoo kale ballan qaaday in internetka ugu horeeyo internetkan Somkebel maadaama maanta furitaanka tahay waxaan ugu sheegayaa inaan insha Allah noqon doono qofkii koowaad ee shirkaddu xaruntii koowaad ee adeegtiiso. waa xafiis cusub bulshada reer Oodwayne waxaan leeyahay internet culus baa inoo wareeriyay maanta aynu in badan ka caawin jirteen aynu hello adeeg fudud baan agteena yimi aynu ka faa'iideysano oo shirkadana la soo dhaweeyay si ay macaamiisheeda dib wax ugu soo celiso. Salebaan Maxamed Cabdilaahi, isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta ee gobolka Daad-madheedh, Sheekh Rashiid oo Cabdilaahi, isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Daad-madheedh, Maxamed Yaasiin oo kamid ah ganacsatada degmada Oodwayne, Suldaan Axmed ayaa dhammaantood hadalka isku daba maray, waxaana shirkadda ku soo dhaweeyeen degmada Oodwayne, waxaana ku hambalyeeyeen shirkaddu inay xafiis cusub ay u furto, waxaana sheegay inay baahi weyn u qabeen adeegyadaasi. gabagabadiina waxaa si wada jira xadhiga uga jaray xafiiskani cusub ee shirkadda isgaarsiinta Somkebel iyo soo barasaabka gobolka Daad-madheedh, maayarka degmada iyo madaxa xidhiidhka bulshada ee shirkadda Somkebel. sidoo kalena waxaa shirkadda isgaarsiinta ee soo ay xafiisyo cusub ka furatay magaalada Hargeysa, iyadoo xafiis ka furatay xaafadda Boqol Jire, gaar ahaan agagaarka kaalinta Gaafane ee galbeedka magaalada Hargeysa, iyo xaafadda Xaraawr oo xafiiska ay ka furatay Jaamac Kunti iyo inta u dhaxaysa businesska.